faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqaymo dhanka cirka ah oo markaa laga fuliyey degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe. meelaha sida weyn ee duqaymaha laga fuliyey ayaa waxaa lagu sheegay in 12 fariisimood ee ururka al-shabaab ay ku lahaayeen degmadaasi, waxaana goobaha farakutiriska ee sida weyn markaasi loo duqeeyey ka mid ah sariiraha iyo weliba jiiro garoob iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe. ha yeeshee diyaaradaha dagaalka Maraykanka ee aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska ayaa duqayntan ka fuliyey magaalada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe. hase yeeshee waxaa sidoo kale jira in dagaalamayaasha al-shabaab ay ku xanibeen gaadiid magaalada muqdisho ka yimid kuwa oo doonayay in ay gudaha u galaan magaalada bu'aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe, waxaana weli gaadiidkaasi ay ku xaniban yihiin deegaanada markaasi hoostaga magaalada bu'aale oo aysan ilaa iyo haatan gaadiidkaasi gudaha magaalada u gelin. sidoo kale tuulooyinka arabow ayaa ka mid ah meelaha sida weyn markaasi duqaynta looga fuliyey oo iyaduna ka tirsan gobolka jubbada dhexe. ciidamada Maraykanka ee markaasi qaybta ka ah howlgalka Maraykanka ee loo yaqaano Africom ayaa sanadkan kordhiyey weerarada ay ka fuliyaan gobolka jubbada dhexe, gaar ahaan magaalada bu'aale, waxaana markaa bu'aale ay fariisin muhiima u tahay kooxda al-shabaab.